Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ninkani iyo gabadhani oo laba isqaba kuna nool meel tuulo ah iyagoo keligooda. Noloshooda waxay ku qaataan tuulada. Gabadhu haddana ninkan waxay u leedahay uur. Sidoo kale waxay ku nool yihiin guriga meesha ku yaal ee ay keligood ku nool yihiin. Haddaba qisada sheekadan ayaa ah ubaxan mucjisada ah. Ubaxani ninka ayaa soo goyn doona. Gabadha yar waxay noqon doontaa mid mucjiso ah oo timaheedu aad u dheeraadaan waa gabadha yar ee u dhalan doontee. Kadib gabadhiisa ayaa ku tidhi waxaan rajaynaynaa inay dhowaan inoo dhalato ilmo yar oo aynu ku faraxno labadeennuba. Isaguna wuxuu ku yidhi haye waan sugaynaa. Kadib ninkii waxa uu arkay ubax dhalaalaya oo ku yaala gurigiisa hortiisa. Kadibna xaggii ubaxii ayuu u soo dhaqaaqay wuxuuna ka soo gooyey mid ka mid a ubaxani. Kadib waxa uu si kedis ah u arkay oo albaabka soo istaagtay gabadh tima cas. Gabadhani waxa ay doonaysaa in ilmihiisa yar ee u dhasha ay qaadato inta isagana indha sarcaadiso isaga iyo gabadhiisaba. Gabadhani waa gabadha indha sarcaadka u dhigta xaafadaha si ay uga qaadato carruurta. Kadib waxa ay sawiratay oo ay malaawalatay gabadha yar ee dhalan doonta nooca ay noqon doonto. Kadib ninkii ayay u timid waxay ku tidhi gabadhaadu uur ayay leedahay dhawaanna waa ay dhalaysaa aniga ayaana kaaga umulin doona ama kaaga dhalin doona gabadhaada. Kadib wuxuu ku yidhi waa caadi waan ogolahay haddii aad rabto inaad iga dhaliso gabadhayda waa fiican laakiin si fiican. Laakiin waxaan rabaa inay gabadh yar oo caafimaad qabta ay noo dhalato. Kadib waxay ku tidhi waa sax waan hubaa ee adigu ii aamin aniga ayaa gabadhaada kaaga umulinaya cid kale yeena kaaga dhalin gabadhaada. Kadib wiilku wuxuu ku yidhi haye waan ogolahay waan sugaynaa. Kadib gabadhiisii oo umushay ayay u timiday gabadhii keen ayay ku tidhi ilmaha yar waxaan eegayaa nooca ilmaha yar ee aad dhashay uu eegyahay. Kadib ilmihii yaraa ayay saa u eegtay waxayna aragtay inay tahay gabadh yar oo mucjiso ah oo timaheedu aad u dheeraan doonaan ama leh timo dahaba. Kadib waa ciyaarsiisay iyadoo doonaysa inay sasabato oo ay saa kula baxsato. Kadib gabadhii waa ay soo qaadatay ilmihii yaraa waxayna la timiday gurigeedii. Kadib waxa ay feedhaysaa timaheedii oo aad u dhaadheeraaday. Kadib tin ka mid a ayay soo qaaday waxayna ku riday biyaha. Biyahaas oo aad u karkarayay. Kabacdi waxay ogaatay inay gabadh yar tahay mid mucjiso ah oo timaheedu aad u dheeraan doonaan. Kabacdi ninkii iyo gabadhiisa oo warwarsan ayaa halkan taagan oo ka warwarsan ilmihii yaraa ee laga qaatay. Islaantani waa gabadhaasi indha sarcaadka u dhigta dadka hadda waxay samaysay guri ayna ka soo tegi karin gabadhan yari. Gabadha yar hadda waxay ku nooshahay guri aan dhulka looga soo daadegi karin oo keliya daaqad laga fuulo. Guriga daaqadan ayaa laga fuulaa lagana soo degaa. Kadib gabadha yar hooyadeed waxay u haysataa gabadhan indha sarcaadka dhigta. Kadib gabadha yareed halkan ayay guriga kelideed maalin walba iska joogtaa. Kadib waxay maqashay cod xagga hoose ka baxaya waana gabadhii indha sarcaadka u dhigi jirtay oo u haysta gabadha yar inay hooyadeed tahay. Waxay ku tidhi gabadhaydi ii soo daa timahaaga aan soo fuula wax kale meesha kuma fuusho ee timaha gabadha yar ayay daaqadda uga soo dhiibtaa kabacdina timahaas ayay fuushaa. Kadib gabadha yareed timihii way u soo daadajisay halkaas ayayna ka fuulaysaa gabadhan ilmaha yar maalinta hore soo xaday. Ilmihii yar way korisay gabadhina gabadha yareedna gabadh weyn ayay noqotay. Maalin walba waxay ku jirtaa guriga waxayna ku tiraahdaa islaantani meel kale ha isugu bixin anaa daadegin hana isku dayina daaqadda iska soo tuurto anaa wax walba kuu keenaya oo hooyadaa. Kadib gabadha yareed waa iska rumaysatay waxay tidhi haye hooyo waan ogolahay waana kugu sugayaa maalin walba halkani ee adigu ha iga raagin. Kabacdi waxay ku tiri gabadhii haye lagama yaabo inaan kaa raago ama inaan kaa tago inanteeda ayaa tahay istaji. Kabacdi halkan waxaa taagan gabadhii laga xaday ilmaha yar iyo aabaheed oo laba masaakiina ah. Waxayna ka warwarsan yihiin dhibtii ku dhacday. Kadib waxaa soo dul istaagay nin aad u maskax badan oo kula nool tuulada wuxuuna ku yidhi
waxaan ogahay in inan yar idinka luntay oo laydinka qaatay ee miyay jirtaa mise aniga ayay iga khaldan tahay. Kadib waxay ku yidhaahdeen, haa, way jirtaa ee adigu aqoon maad u leedahay. Kadib wuu soo fadhiistay ninkii oo waa ay fadhiisiyeen, wuxuuna ku yidhi, haa, waan ogahay, meesha ay jirtana waan aqaanaa. Kadib wuu yaabay inantii yareed aabaheed, wuxuuna ku yidhi, halkee ayay joogtaa oo halkee ayay ku qarsoon tahay. Hooyadeedna waxay ku tidhi, hadda noo sheeg halka ay joogto ilmahayaga yaraa, lacag ayaanu ku siinaynaa iyo waxa aad u baahatee. Wuxuu ku yidhi, sanado badan ayay idinka maqan tahay inantiinna yareed, aad bayna u weynaatay, aniga ayaana idiin soo kaxaynaye in yar isuga. Kadib waxa uu maqlay cod ka baxaya xagga sare, waana gabadha yareed ee uu raadinayay ee uu doonayay inuu u soo kaxeeyo xagga waalidkeeda. Kadib wuxuu arkay meesha oo aan laga soo daadegi karin, meesha oo aan la fuuli karin oo aad u dheer. Kadibna korka ayuu soo eegay, wuxuuna arkay gabadh yareed oo xagga sare kala soo hadlaysa oo leh, waa ayo. Kadib waa uu cararay, waanu isqariyey, waayo waxa uu arkay gabadhii indhasarcaadka ahayd ee gabadha yar soo xaday. Kadib gabadhii intay halkaas soo istaagtay ayay ku tiri, gabadhaydii timahaaga ii soo daa aan soo fuulee. Kabacdina sidii si la mid ah ayay u fuushay oo halkaas ay gabadha maalin walba ay timaha uga soo ridaa si ay u soo fuusho gabadha kale. Kadib wuu fikiray, wuxuuna is weydiiyey, gabadha yar timaheeda ayaa ileen meesha lagaga soo daadagaa laguna fuulaa. Kadib waa uu hoos yimid, wuxuuna ku yidhi, waa hooyadaa ee ii soo tuur timahaaga. Gabadhii yar way naxday, waxayna maqashay cod ka duwan codkii gabadhii indhasarcaadka ahayd oo ay u haysato iyadu hooyadeed. Kadib way iska calool adeegtay, timihiina waa u soo daysay. Kabacdi ninkii waa uu soo furay timihii, waxa uu dhexda isagoo sii maraya uu arkay ubax, ubixiina waa u soo qaaday, kadibna wuu soo fuulay. Kadib gabadhii yareed aad ayay u naxday, waxayna ku tiri, yaad ahayd, dib iiga joogso, ma tuug ayaa tahay, xaggeed iga soo gashay. Kadibna waa is canaanatay, waxay tiri, waxaa igu wacan waxaasoo dhan waa timahayga, dib iiga noqo, hooyaday ma tihid. Kadibna wuxuu ku yidhi, istaji, ani waxaa la yidhaahdaa Aadam, cidna waxa ma yeelo, miskiin ayaan ahay, wax dhibaato ahna kuma geysanayo, laakiin arrin ayaan kuu sheegayaa. Kadib waxay tiri, ii sheeg arrinkaad sheegaysid wuxuu yahay. Kabacdina wuxuu ku yidhi, ubaxan qabso. Kadibna ubaxii ayay qaadatay, waxayna tiri, ubaxan aad ayaan u jecelahay oo timahayga ayuu ku yaallaa, bannaankana wuu ku yaallaa, maxaad iigu keentay ubaxani. Kadib wuu fikiray, wuxuuna ku yidhi, haa, ubaxan inaad jeceshahay ayaan ogahay, laakiin sir ayaan kuu sheegayaa ee sirtaasi waa inaad qarisaa. Oo maxay tahay ayuu ku tiri, sirtaad ii sheegaysaa. Kabacdi in yar intuu u sheekeeyey ayuu iskaga tegay si ay iskula qabsadaan gabadhii. Maalin labaad ayuu ku soo noqday, haddana wuxuu ku yidhi, waa wiilkii oo saaxiibo ayay nahay hadda, suma fiicnid. Wuu u yimiday dhowr maalmood markuu maalin walba u imanayay si ay gabadha yar u aaminto ninkani. Kabacdi ninkii wuxuu si qarsoodi uga soo qaaday gabadha yareed sawir, wuxuuna u geeyey hooyadeed iyo aabaheed, wuxuuna ku yidhi, wataa gabadha yar sawirkeedii ee gabadhiin yareed ma tahay. Kabacdi waa ay yaabeen, waxayna ku yidhaahdeen, haa, waa gabadhayadii yareed ee noo keen, halkay joogtaa. Kadib wuxuu ku yidhi, meel adag ayay ku jirtaa, laakiin waa hubaal, aniga ayaa idiin soo kaxaynaya, anaana idin ballan qaadaya inaan soo kaxeeyo. Kadib gabadha yareed ayuu ku noqday, wuxuuna ku yidhi, maanta arrin weyn ayaan kuu wadaa oo aadan hore u maqal, oo muxuu yahay ayay ku tiri gabadha yareed. Kadib wuxuu ku yidhi, hooyadaada dhabtii ma aha gabadhan waa gabadh indhasarcaad ah oo hooyadaa soo indhasarcaadisay oo kaa soo qaadatay adigoo yar. Kadib way yaabtay, waxayna ku tiri, ma rumaysan karo waxaad ka hadlaysid ee wax runa ii sheeg, been ayaad sheegaysaa. Kadib wuxuu ku yidhi, maya, wax been ah ma sheegayo, gabadhan waa indhasarcaad. Kadibna waxay maqleen qaylo iyo oohin dibadda ka baxaysa iyo buuq. Kabacdina waxay arkeen gabadhii lahayd hooyan ku ahay iyo gabadh kale
oo islaynaya oo isku haysta indhasarcaadnimadii. Gabadhan kale iyo gabadhani waxay isku laynayaan awoodaha xagga indhasarcaadka ah, kadibna waa laba isku hanjabaya oo labaduba laba indhasarcaad yihiin. Way isku hanjabayaan oo way dagaalamayaan, waxaana yaaban oo soo eegaysa gabadhii yareed ee hooyadeed u haysatay gabadhan timaha cas leh. Labadan dumarkeed labaduba waa indhasarcaad. Wiilkii waa ku yidhi, gabadhani waa indhasarcaad, waana runtay oo waasaan kuu sheegayay oo adiga arkaya inay islaynayaan gabadh kale oo indhasarcaad isku laynayaane. Kabacdi gabadhii yar way naxday, wayna yaabtay, waxayna tidhi, waa runta, gabadhan waa indhasarcaad ee hooyadeeda dhabtii halkay joogtaa ma ii sheegi kartaa? Kadibna wuxuu ku yidhi, ha warwarin, aniga ayaa hooyadaa kuu geynaya oo si dhaba kuugu geyn doona. Kabacdi waxay tidhi, saynu meesha uga daadegno, timahayga ayaan halkan ku xidhayaa, marka labadeennu waynu ka wada deganaa meesha, saas ayaanu kaga yaacaynaa. Kadib waa ay ka soo baxsadeen, waana ay soo yaaceen, waxayna u yimaadeen labadii dumarka ahaa ee islaynayay ee mid iska dhigaysay iyada hooyadeed. Kadibna waxay tidhi, xaggeed geynaysaa gabadhayda yar? War tuug baa tahay, miyaad soo xaday gabadhayda? Islaanta kalena waxay tidhi, fursad ayaan helay oo indhasarcaadnimadii ayay kaga faa'iidaysatay intii sii jeeday oo dhulka ayay ugu tuurtay gabadhii kale. Kabacdi gabadhii indhasarcaadka ahayd waxa ay tidhi, gabadhan waa indhasarcaad, waana gabadh khaa'imad ah, aniga ayaana og, maalin walba waanu islaynaa. Iyadna waxay tidhi, waa beenaley oo iyada ayaa indhasarcaad anigu ma aqaano wax indhasarcaad ah. Kadib gabadhii yareed ayaa soo carartay, waxayna ka qabatay gabadhii kale ee dilaysay. Gabadhii kale waxaa dilay oo sidoo kale isaga indhasarcaadkii ka baabi'iyey ninkii gabadha yar la socday, oo waxay uga hiiliyeen gabadhii indhasarcaadka ahayd ee inanta yar marka hore soo xaday. Kadibna islaantii kale waa ay duushay inta shimbir noqotay oo waa iska tagtay. Kadib gabadhan yar oo ahayd mid aad u caqli badan oo maskax badan ayaa tidhi, aniga hooyaday adigu ma tihid, waan ogahay, laakiin xaq ayaad igu leedahay maadaamaad isoo korisay. Gabadhan waxay ku tidhi, meeye timahaagii dahabka ahaa ee aad lahayd xaggeed kaga timiday? Kadib waxay ku tidhi, waan iskaga imiday, waxaanan helay nin wanaagsan oo saaxiibkaya, ninkan wuxuu ii sheegay xaqiiqada, laakiin adigu waad iga qarisay xaqiiqadii oo dhabtii iyo runtii midna iimaad sheegin. Kadib way yaabtay gabadhii, wayna naxday. Waxay tidhi, waa aya ninkani? Kadib gabadhii timaha casayd waxay tidhi, haye, ninkan aad saaxiibka noqoteen waan isku kiin darayaa ee ahaada dad saaxiibo ah oo isjecel, aniga ayaa isku kiin daraya maadaama oo aad i badbaadiseen. Kadib gabadhii yareed intay ubax yara soo qaadatay ayay timihii dib ugu soo baxeen mar kale. Kadib gabadhii timaha casayd waxay ku tidhi, anigu haddaba hooyaday ayaan u tagaya, waana hooyadeedii runta ahayd, hooyadeeda runta ah ayaan u tagayaaye, hadda wiilkan ayaana raacayaa, saas ayaana ku tagayaa ee nabadgelyo. Kadib hooyadeedii dhabta ahayd iyo aabaheed ayuu u geeyey ninkii. Aad ayayna iskugu farxeen markii ay is heleen. Gabadhii timaha dheerayd ee timaha dahabka lahayd ee hooyadeed iyo aabaheed loo geeyey waxaa loo dhisay oo la siiyey ninkii soo kaxeeyey iyada ee u keenay aabaheed iyo hooyadeed. Halkaas ayuuna ku guursaday ninkii Aadam la odhanayay ee soo helay gabadha yari. Hadda waa qoys dhammaantood waxay wada joogaan hooyadeed, aabaheed, iyada iyo ninkeedii. Sheekadeennana halkaas ayay ku dhammaatay.